بسم الله الرحمن الرحيم دمان وايدين ودا سلام يا ما شاء الله قف كست waxaan rajeynaa inuu meeshiisku caafimaad qabaan rajeynaa insha Allah casharkeena maanta ama casharkeena qaab dhismeedka kooxda macnaha koox qaab dhismeedkeeda waa qodob badan laakiin waxaan qaadan doonaa ilaa 4 qodob aan qaadan doonaa insha Allah oo ugu horeeya golaha maamulka madaxweynaha kooxda madaxweynaha ku-xigeenkiisa iyo agaasimaha guud sida aan wada ognahay koox kasto ama team kasto waxay leeyihiin kolo sare kolo maamul ay leeyihiin oo ah dad way argin aqoon leh ciyaaraha soo maray macna guddi oo marjac oo loo noqdo oo kooxaas wax alla waxay u baahan tahay lagala tashanaayo kooxdaas waxay rabto la weydiinaayo ka fadhiisanaayo ka xal weydiinaayo macalinka saasoo kale gudoomiyaha kala hadlaayo macna guddi golo sare oo maamul ah way koox kastana waa qabaan sidoo kale number 2 wuxuu noqonaa qodobka labaad madaxweynaha kooxda waxay leedahay madaxweyne ama gudoomiye leedahay chairman gudoomiyahan role uu leeyahay waxba laga rabaa waxba saaran oo ah in kooxdaas ay ciyaartooy kasto ama macallin kasto oo horumarin karo ama loo arko inuu kooxda meel gaarsiin karo oo kooxda wax la qaybsan karo madaxweynahaas inuu soo diyaariyo macallin fiican aqoon leh way arag ciyaartooydu dalbadan u keena heshiiska in nidaamkana ku shaqeeya ku-xigeenka wuxuu hoostagaa madaxweynaha oo marka uu maqan yahay ama markii xogaha ay ku imaadaan madaxweynaha waa ninka kooxda ka saaran mas'uuliyadda waa loo kala fiican yahay ninna kooxda waa dhisaa wuxuu gelinaa daacad waa ninna koox dhisaay wax ma gelinayo Soomaa marka madaxweynaha waxa loo kala fahmaa kooxda wada shaqeynteeda iyo qaabkeeda iyo horumarkeeda lagu fahmaa inuu fiican yahay inuu xun yahay agaasimaha guud ee kooxda macna kooxda waxay leedahay agaasimo guud team manager taa dhigi karnaa waa ninka kooxda qorshaha u dejinaayo waa ninka ciyaartooyda dalbanaayo waa qofka ciyaartooyda keenayo waa qofka materialka lagu shaqeynayo wax kasta diyaarinaayo macnaha adduunyada waxay tahay qof kasta role ku leeyahay macnaha qof kasta waxba saaran waxba khuseeya macalinkan waxa loogu fadhiyaa inuu diyaariyo marka agaasimaha ayaa soo diyaarinaya macalinka team manager kana ah macalinka coachka waxa waa qofka tababarayo ciyaartooyga siinaayo tababarada lagu hormariyo ciyaartooyga team manager waa soo sheegnay waa qofka awaawulayo kooxda ciyaartooyga loo baahan yahay keenayo wax kasta diyaarinayo qorshaha balaankana diyaarinayo oo lagu shaqeynayo hadii ciyaaraha lagu jiro hadii diyaar garow uu yahay marka waxaan wax isku xiran silsilad ah insha Allah marka waxaan rajaynayaa insha Allah inaan fahmi doono duula idmo insha Allah casharadan waa noo socon doonaan waxaan rajaynayaa insha Allah duula idmo aad iyo aad u maasantiin dhageysigiina wacnaa casharada dambe ku qaadan doonaa insha Allah qodobada kale noo harsan ilaa iyo dhowr qodob aad u badan insha Allah oo muhiim ah assalamu alaykum.